sanad wanaagsan intaynan u galin wararka aynu ku bilaawno natiijooyinka kulamadii kala duwanaa ee xalay dunida laga ciyaray waxaynu ku hormareynaa koobka qaramada qaarada Afrika oo ciyaaro xiiso leh ay dhaceen wacdaraayay xulal ku dhigeen Madagascar aynu ku hormarno DR Congo ayay soo jaheen waqtigii loo asteynay 2 gool ayay isku mari waayeen ama ciyaartooyga la yiraahdo ayaa 9 daqiiqo markay Madagascar gool u dhaliyay oo uu ka ansixiyay qaranka DR Congo Bukambo ayaa barbaraasiyay wadankiisa 21 daqiiqo Congo ayaana natiijada hal hal ku soo celisay ciyaartooyga lagu magacaabo Andres Tima ayaa isagu dhaliyay gool Madagascar oo hogaanka ugu dhibay daqiiqadii 77aad ee kulanka laakiin 9 daqiiqo Impembe ciyaartooyga la yiraahdo ayaa waxa uu ka dhigay 2 gool iyo 2 gool daqiiqadii dheeriga ahaana waa la isku mari waayay waxaana taay keentay in rigorooyin la aado rigorooyinkii la dhigayna 4-2 waxa libinta ku qaatay xulka taariikhda sameynaya ee koobka qaramada qaaradda Afrika ku jira Madagascar waana markii ugu horeysay Iran uu soo xaadiro 4-2 ayuu ku adkaaday rigorahii hore iyo kii dambe ayay iska lumiyeen ciyaartooyda DR Congo waxaana markaasi ka faa'iideystay dhammaan rigorooyinkoodii qaranka Madagascar Algeria waxay ku barbaratay oo ay ciqaabtay xulka Gani 3 gool ayaa dhabarka loo saaray Gani boorsooyinkooda ayay ka xirxiranayaan maanta Masar dib ayayna ugu laabanayaan dalkooda xidiga lagu magacaabo Palele ayaa 24 daqiiqo gool ka dhaliyay qaranka Gani waxa goolasha ku sii badiyay Riyad Mahrez daqiiqadii 7-aad ee kulanka ayuu 2 gool ka dhigay Adam Onas oo wacdara ka dhigay tartankan ayaa 22 daqiiqo dhaliyay goolka saddexaad ee kulanka 30 June gagida la yiraahdo ayaa lagu ciyaaray Penat Kamili oo u dhashay Seychelles ayaa dhexdhexaadinayay ciyaartan xiisaha leh ee Algeria iyo Gani waxaana markaasi la dheehanayay in Algeria ay wacdara ka dhigi kareyso marka laga qiimeeyo kulamada ay soo ciyaartay kulamada kale haray nusdamaadka ayay gaari kareysaa iyadoo hadda wareegga ee tartanka markaa u gudubtay koobka ablaha dunidana haddaynu u galno Mareykanka ayaa 2 gool ku suldaaray kuwa Netherlands waa loo badinayay in ay taariikh kala samayn karayaan kuwa Mareykanka markoodii afraad ayaana loo diiwaan geliyay hanashada koobka ablaha dunida qaybta hore ciyaartu wax gool la iskama dhalinin qaybta labaad Robinho ayaa bilowday goolasha daqiiqadii 61aad ee kulanka ayay rigoora dhalisay Lavelle ayaa 69 daqiiqo ka dhigtay 2-1 Stade Lyon ayaa lagu ciyaarayay 75900 taageere ayaa gagida ku jirtay Steven Vabat Nicolas France waa haweeneyda leedahay France oo dhaltay ayaa dhexdhexaadinaysa kulan ciyaareedkan waxaana ciyaartu ay ku dhamaatay 2 gool oo Mareykanku ay libinta ku qaateen Brazil iyo Peru Copa America iyo kama dambaysta koobka hadaynu eegnana Brazil ayaa iyana markii 9aad loo xariiqay ku guuleysiga Copa America Argentina ayaa iyadu gashay booska 3aad ee tartanka Peru ayaa kaalinta 2aad ku dhameysatay 15 daqiiqo markay ahayd ayuu Everton dhaliyay gool dhinaca laga soo qaaday oo meel wanaagsan ka helay ciyaartuna waxay noqotay gool waxba Guerrero oo Katsan Peru ayaa hal kaga dhigay rigooro 44 daqiiqo ciyaartu kolkii ay ahayd daqiiqadii 45aad ee kulankana Gabriel Jesus ayaa 2 gool ka dhigay Jesus ayaa kaarka gudan lagu ganaxay daqiiqadii 7aad ee kulanka 9 daqiiqo ciyaartu markay ahaydna Richarlison ayaa rigooro u dhaliyay xulka jaalayaasha lagu naanayso 3 gool iyo gool ay markaa Brazil ku hanatay koobka Stadia Hadamacano ayay ciyaartu ka dhacday Robert Toba oo Chile u dhashay ayaa ciyaartan isagu dhexdhexaadiyay ciyaaraha la ciyaarayna sidaas ayay ahaayeen maantana dunida gaar ahaan qaaradda Afrika kulamo xiiso leh ayaa la sugayaa ciyaari doona aynu eegno xulalka markaa la sii sugayay inay kulmaan Mali iyo Ivory Coast 7 fiidnimo waqtiga geeska Afrika ayaa kulankooda la daawan doonaa Ghana iyo Tunisia ayaa 10 habeenimo iyaguna wada ciyaari doono markaynu ka hadlayna Cup of Nations 7 fiidnimo ayay ciyaarta Mali iyo Ivory Coast dhacaysa Ghana iyo Tunisia ayaa 10 habeenimo wada ciyaari doono waa ciyaar aad u adag marka la eego kulamadan oo idil waxaana markaas ay leeyihiin xiiso gaar ah